بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى muuqaalkeena maanta waxaynu ku arki doonaa runtii application aad muhiim u ah isla markaana inaga caawinaya telefoonkeena kor u qaadno speedkiisa yani speedkaas oo noqon kara internet hadduu yahay wifi iyo hadduu yahay wireless sidoo kale speedka ama yani maanta waxaynu muuqaal ku arki doonaa waxa weeye waxaynan hore u arago yani gebi ahaanba signalka telefoonkeena kor u qaadi karno marka runtii signalka telefoonka wuxuu noqon karaa signalka wirelesska isticmaalayso ama signalka daatada aad isticmaalayso internetka ama si kale signalka telefoonkaaga oo ah xitaa haddii aanad internet isticmaalayn in haddii aad yani meel ka fog يعني هذا سكال ورادو ميل أن مجالهن ميل أتينك تلفونك نمبر كات توكيري هاي أدون سنة سيجنال كيس حدنا إنه قروقاته صدقوا في الفيديو هذيك سنكتو أبليكيشن كنتي باربوسس فرابطن أكل دون لو استعمال كرو سيجنال كانت قروقاته هذا تاي إنترنت واي فاي يداتا يسوق كلا يعني سدات كاركاga سيجنال كيس قروقاده كرتو إنتنا أبليكيشن كوجود بين كسر هذا مقال كان مانتا ساعة halkaan ragtaan application ku kaalka noo saaran wax loo yaqaan open signal saaragtaan hadda markaan furay wuxuu igu leeyahay weydiinaya dropped call marka yani halkan oo kale waxaan odhanayaa it was not tan saaragtaan interfacekiisa waa sida application interfacekiisa waa sida ugu horreyn baad yani adigu aad kor ugu qaado ama refresh u samayso ugu horreyn halka ugu muhiimsan application waa refresh saaragtaan halkan waxa weeye saacadahan uu tusanayo ateenkaaga saaragtaan voice waxa weeye signalka kaarkaaga halkan oo kale iyo labadan kale oo kana uu yahay signalka yani telefoonkaaga daatadiisa internetka iyo kanoo ah yani wifi-ga marka saaragtaan ama signal direction oo ah yani gebi ahaanba signalka guud ee telefoonka saaragtaan wuxuu leeyahay data no data yani telefoonkayga hadda anu saaragtaan wifi ayaan isticmaalaya keenaysa inaan data isticmaalayn voice-kana saaragtaan waa xidhan yahay saaragtaa kan wireless kan isticmaalay magaciisa ay ku qoran marka saad yani kor u qaado refresh wadanaas saaragtaan wuxuu leeyahay meel setting ka soo sax marka anigu ma doonayo inaan settingkayga wuxuu leeyahay datadaada soo fur marka anigu ma doonayo saaragtaan bal hadda bas anigu ma xarataan aniga hadda wifi-ga isticmaalay inuu leeyahay signalkiisu waa buuxa wifi-gan halkan sidii ka muuqata lafteeda signalkaygu waa buuxa saad signalka wifi-ga kor u qaado refresh advance balse hadda anigu saaragtaan signalkaygu waa very good laakiin saaragtaan signalka voice telefoonkayga ayaa xiran iyo ka daatada saaragtaan kan telefoonkayga airplane mode baa ku xiran telefoonkayga flight mode baan ku xiran ama airplane mode qofba siduu yaqaano taas ayaa keenaysa in yani saaragtaan uu leeyahay labadan midna ma jirto dadna wuxuu leeyahay airplane ta ka fadhi saaragtaan wuxuu leeyahay wax sima kaara ateen ma jiro wax data ma jirto saarada ugu furo refresh ay hadaan iraado wuxuu leeyahay setting ka tag oo ka soo fur marka wuxuu leeyahay datadaada setting ka tag soo fur laakiin anigu ma doonayo hadaba uu sad kor u qaado waxa imaanaysa halkan setting iyo refresh wadanaas waa qaybta ugu muhiimsan qaybtaas halkan oo kale waxaad ka dooranaysaa network-ga yani network-yada isticmaalayso hadii wifi ima saaragtaan aniga saddex wireless bay dhuubi ugu leeyahay wifi network-kiisa halkan ay hadaan ku dhufto saddex wifi ugu tusay hadaba san application interface-kiisa kale waa qaybtan oo kale qaybta advanced saaragtaan hab advanced oo noqonaya wifi-gaaga waa on uu furan yahay Google wireless-kaygu MAC address-ka telefoonkaygu dabcan iyo IP address-ku aan yar qariyeen halkan ay ku jiraan marka si advanced oo noqonaya haddaan dib ugu noqdo halkan ku dhuftana symbol yani inuu si symbol oo qof walba akhri karo tusiyo halkan oo kale waa test inaad tijaabo ku samayso wifi-gaaga saaragtaan hadda markaan wifi-gayga speedkiisu halkii u dambeysay halkii ugu wanaagsaneyd 50 MB per second buu leeyahay weeyaan ayuu leeyahay marka saaragtaan halkan oo kale test haddaan idhaahdo haddana uu tusanayo history-ga halkan ku jira haddaan tago marka halkan oo kale halkaad wireless-kaaga ama datadaada kaad isticmaalayso speedkiisa ka tijaabinayso halkan oo kale waa statuska يعني data minutes SMS يعني signal strongest saaragtaan awoodda signalkaaga ay ku tusinayaan halkan oo kale waa coverage yani inuu kugu tusiyo coverage marka waxaad aragtaan inuu halkan oo kale leeyahay waa as graph oo kale okay aan ka noqono qaybta dambe soo qaybta report-ka marka saaragtaan halkan oo kale location-kayga iyo buu kaga hadlayaa meeshayda qamishan joogo halkan oo kale poor voice quality iyo buu ka yani
يعني koolkayga buu kaga hadlaya marka runtii saynishiga waa application muhiimadiisa leh aan jeclaan lahaa qof walbana kula talinayo inuu adeegsado kana faa'iidaysto wax fara badanna aad runtii ka baraaso marka runtii applicationka saa aragtaan block call dad koolasho baahanta uu ka xidhaya drop uu ka qabanaya poor face quality iyo message incoming call yani wuxuu kuu sheegayaa miskoolada kusoo gala markaad qof la hadlayso quality-ga codkaaga inuu buur yahay iyo inaad block all calls oo dhan iska xidho marka runtii reportka halkan aad ka gudbinaysaa haddaad u baahantahay inaad applicationka developerskiisa report u gudbiso say kuu taraan wax fara badan oo kuga caawiyaan marka anigu runtii muuqaalka internet ku qabsanaa fadlan haddaad kala ku cusubtay noo subscribe garee haddaad muuqaalka heshayna noo like garee haddii jirto inaad muuqaalo noocan ka heshana fadlan la wadaag intaan muuqaalkan ku xigi kulmi doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu